السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا حسوس قرد اختر إذين قرطو إذين ديارسو دكتور باق بوبال أي كسو ديارسو مقالة هرقيسا وحن حسوستا مالنتي تاريخ دو أهيد لحدي بشي لحاد لبدي كن يتضبيو طبانكي أي قبر بار اختركي قلتي مي أنكو قياسة إلى سدنشر ووتي يدو لي كد آيو إلكيني كصوداتين مركسان وحن وديون كوري بحاكو هلاي وحي قلتري anigoo baskii korsan ayaa gabar baycayday markaasan dhagax ku dhiftay aan u qaatay markaas iyaduna xanaaqday oo iyaduna igu soo boodo ilkeyga soo daadisay waxaan niyadeyda ku soo dhacday baxay wacnaani lahayd in dulqaad ad lahaan lahayd maanta ilkahaaga mad waay lahayn maanta waxaan idin soo dhigayaa 4 qodob oo kuugu wacan in dulqaad ad yeelatid kuugu wacan in adduunka wax fudud ad ka soo qaadid iyo inaanad waxyaabaha yaryar aanad weynaysiinin وحمان دادك ودناهاga aanad ugu qaadin iyo inaad dulqaad ad yeelatid qodobka koobaad waxa weeyaan sulxul xudaybiya wuxuu ahaa heshiis ay galeen nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo gaaladii Quraysh oo lagu ogolaanayo muslimiintu inay booqdaan ama ku tawaafaan Kacbada nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markii sulxul xudaybiya ay heshiiyeen ayaa wuxuu Ali ibn Abi Talib ay wuxuu ku iri waxaad qortaa waraaq heshiiskan xaqiijinaysa gaaladuna waxay doorteen Suhayl bin Amr inuu heshiiska dhexmaray muslimiinta iyo gaalada inuu saxeexo nabiga alayhi salaatu wasalaam ayaa Ali ibn Abi Talib ay wuxuu ku iri waxaad qortaa bismillaahir rahmaanir rahiim taas waxa weeyaan waxay ku heshiiyeen Muhammad rasuulullah ninkii la oran jiray Suhayl bin Amr ayaa xanaaqay wuxuu ku iri ha qorin inaad rasuulullah tahay wallahi hadan ognahay inaad tahay rasuulullah man ku diidi lahayn inaad Kacbada ad ku tawaaftid ama Kacbada ad booqatid laakiin waxaad qortaa Muhammad bin Abdullah nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu ku iri Ali masax Aliyo وواحد قرطة محمد بن عبد الله علي بن أبي طالب وحناق وحوري والله ما مصحايو يا رسول الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيوحو كوري كان عليو مركاسا قعنتي سيبكم مصحي مركاسا وحو قري علي بن أبي طالب محمد بن عبد الله هذا هو حقرتان مصح عليو وحيد حكمده أما دقنكو كو دقم جري محمد صلى الله عليه وسلم مصح عليو معنيد وحي أهيد إنو إلى اليوم محمد صلى الله عليه وسلم شركتي أما دولدي إسلامك ودساي مستقبل كي دين إسلامك مصح عليو معنيد وحويان قرورها يدقح يرق لغاها هوسيا لإناند إيجن واد أسعتد هدف كاغوين يهن كاغوين مصح عليو معنيد وحويان خساري ركوبون إمكا كوكو دعايا سيد هدو تن أقادد قول كي ويناء يفرحدي وينايد مسح عليو معنيد وحويان إن الطلابة أدب أدو نقتد وعكتاد أدب أقادد سيد أقود ديار قرودد تلابدي وينايد يا إند سوين أد أبودد مسح عليو معنيد وحويان سياسة أما دقان قف كستا وكودق ما ينرشن هدف وين لي يهم وين لي وعرك يسمد يضيح إيجايا أنا إيجين على جيس وحكوها سيا وهدف كيسو يهي إنه هم جيس وجارو مسح عليو وحي هيد سببته لهي وسودتشيي بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وإلهي ومكة وفري يدد بدن دينتي إسلامك أي قلين وحكدن به مسح عليو سبب طلبات أي مهم أتاي إن الدلقات أديالتد وحيابها قاركود نولش أديسك دافتيد وأنا أفيرسن وحويا آد بي مهم أتاي إن الإلالي سيد وقت جاجا يحو جاجا وأنا تكبابين وحيابها بلا معناها وانا مهم إن أنا تكل من نولش هذا يوقت جاجا قالجا مرن يدود أدلق لي سدد بلا معناها أما أتكون مشغولة يسد وحيابو وقتك كالو منيسا سببتن وحويا وحي كان مشغولين يان هدف كاغا كوباد نلوشا يفرين تادا نلوشا أدقود بين لهيد وحي كان مشغولين يان مسؤولية دهاغا يحلكا كسارا يإند نلوشا أدراد كوريبتد تانو حمتو صالة إذن سوى قاضية عمر بن عبد العزيز خليفة مسلمين تا الدولة ديسو أي قادي أفريكا يا يوروب يا إيشيا عيدما ديسو أي ميل كست أدونك أي تشوغين
boqolaal dad ay u shaqaynayeen iyo kunan wasiiro ay u shaqaynayeen amarkay ka qaadanayeen ayaa maalin ninka awoodda leh ayaa wuxuu marayay suuqa isagoo la socda wasiirkiisa markaas isagoon arkaynin ayuu nin ku joogsaday lugtiisa ninkiiba qayliyo wuxuu ku yiri warmad indhaladahay wasiirkiiba ayaa uu xaraaqay oo wuxuu isri ninka maag sidoo amiir almu'miniin uu sida ula hadlaya laakiin Umar wuxuu ku yiri iska daa su'aal buu weydiiyay wuxuu igu yiri mad indhaladahay aniguna waxaan ugu jawaabay maya ma indhali arrinkii iyo sheekadii halkaas ku dhamaatay Umar bin Abdul Aziz waqtigiisii qaaliga ah kumuulu min muran uu la gali lahaa ninka ama inuu ka argoosto ninkaas sababtuna waxa weeyaan Umar bin Abdul Aziz wuxuu ku mashquulaha wax ka weyn mas'uuliyad iyo xil iyo mustaqbal ummadda islaamka ayuu ku mashquul ahaa sababtaas ayaan ilaa imaka Umar bin Abdul Aziz aan u xasuusanaa sababtaas ayuu magaciisu taariikhda ku qoran yahay u ducaynaa sababtaas ayaa lagu tilmaamay amiirkii shanaad ee muslimiinta sababka saddexaad waxa weeyaan diinteenu waa diinta akhlaaqda ma aha diinta salaada iyo soomka hadad weydiisay dadka inta badan diinta islaamka gala aad ku tiraahid waa maxay sababta oo diinta islaamka u gasheen kuguma jawaabayaan inay saameyn ay ku yeelatay salaada dheer ee jaarkooda uu galo ama inay saameyn ku yeelatay jaarkoodu inuu 5 salaadood masaajidka ku tukado ama inay saameyn ku yeelatay zakada ama qiyaam leyl oo bin aadamkaas uu sameyn jiray laakiin waxay kugu oranayaan waxa saameyn nagu yeelatay jaarkayga ama saaxiibkayga muslimka akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo naxariistiisa iyo raganimadiisa marka diinta islaamku waa diinta akhlaaqda wax kale jira dadku markay xanaaqaan ama dhibaatada ka hor timaado waxa soo baxa macdankooda iyo tarbiyadooda iyo akhlaaqdooda dadka qaarkood aad u maleynaysid inay dad wacan ay yihiin ayaa markay xanaaqaan dad kale isu bedelayaan aanad garanaynin oo hadal xun bay ku hadlayaan ama way dagaalamayaan marka waxaad xasuusataa markasta aad xukuntid aad ka adkaatid caatafadaada iyo dareenkaaga taas waxa weeyaan tusaale muujinaysa in akhlaaqdaadu ay tahay akhlaaq sareysa taasna waxaan tusaale idin soo qaadayaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam isagoo maalin asxaabtiisa dhex fadhiya ayaa wuxuu imid jaarkiisa yahuudiga markaas jaarkii nabiga intuu qabtay ayuu soo jiiday wuxuu ku idhi inni araakum ya bani haashim qawman mutal macnihiisu ay tahay waxaan idin arkaa adiga iyo qoladaadaba bani haashim inaad tihiin dad deynka aana bixin oo deynka habsaamiyo ka baxsada taasna waxay ahayd sababtu inuu nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam ninka wax ka amaahiyay marka wuxuu u rahmiyay gaashaankiisii ama dircigiisiiba u dhibtay oo ku rahmiyay markaas ninkii yahuudigu wuxuu yimi waqtigii ana lagu talagalay in deynka uu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu bixiyo ama deynkii intaan la gaarin waqtigii la bixinayay Umar bin Khattab uu xanaaqo sayftiisii la soo baxay wuxuu siri ninkii dil markaas wuxuu ku yiri murni ya rasuulallah aqta'u raqabatahu nabi maxamed uu amar bixi in ninka qoorta aan ka jaro maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu jawaabo ku yiri maya Umarow kada wuxuu ina barayaa inaan deynta aan si fiican u soo celino inakuna waxaan baraynaa akhlaaqda wacan ninka yahuudiga markiiba uu muslimay marka la weydiiyay lagu uri baxad uu muslimtay wuxuu ku jawaabo iri waxaan ku arkay sifadihiisii tawraada lagu sheegay oo kamid tahay inuu yahay qof dulqaad leh oo markasta dadku xumaantoodu ay badato isaguna dulqaadkiisu uu kor u kacayo taafaraad waxa weeyaan nabi yuusuf alayhi salaam markii walaalihii ogaadeen inuu nabi yuusuf uu yahay nabi yuusuf kamu argoosanin markuu ku yiraaheen nasaamax isagoo karaayay inuu ka argoosado uu ka jaro waxay ku sameeyeen laakiin wuxuu ugu jawaabo ku iri la tathriba alaykum alyawm yaghfiru Allahu lakum huwa arhamur rahimin sadaqa Allahu alazim oo saamaxay oo iska dhaafay waxay ku sameeyeen haddaba markasta dadka aad saamaxdid oo dulqaad aad la timaadid oo aanad qodin xumaantooda oo aanad ka daba tagin dambigay sameeyeen oo aanad qodqodin taas waxay muujinaysaa inaad tahay qof qalbi weyn leh oo go'aan leh waxaanad xasuusataa markasta dadka aad saamaxdid oo dacafidid oo xumaantooda aanad u fiirsan inuu ilaahay darajadaada kor u qaadayo oo ilaahay uu ku argoosanayo haddaba aan ka dhigno maanta waxa laga bilaabo dhaqankan adduunka aan ku dhaqmayno dhaqankii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu gaalada uu kula dhaqmi jiray uu oran jiray imxiha ya cali masax caliyow
waxaanad xasuusataa inuu ilaahay idhi bismillaahi raxmaani raxiim wain tacfuu watasfaxuu watakfiruu faina allaha gafuurun raxiim. waxaad kale aad xasuusataa dhadhanka macaan ay leedahay aargoosashadu in badan ma joogto in badanna ma jirto, laakiin dhadhanka wacan uu ku siinayo inaad qof cafidid oo aad saamaxdid iyo nabadgelyadu wadnahaaga uu gelinayo waa dareen in badan jiraya oo qiimahaaga kor u qaadaya. waad mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.